Dhame Axmed Cabdullaahi Baashan taliyaha booliska degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaa digniin u diray dhalinyarada dhibaatooyin ka geysata xeebta Lido inta lagu guda jiro maalmaha Ciidul Adha. Wuxuuna taliyaha hadalkiisa ku daray in ciidanka booliska ay kor kala socon doonaan amniga guud ee xeebta Lido, isla markaana gacanta ay ku dhigi doonaan cidii isku dayda inay dhibaato ku dhex samayso xeebta dheer ee Lido. in ammaanka biri 200% ka dhigi doono hadii la yiraahdo shacabkuna iman karaan ayagoo si nabadgelyo ay u dabaalan karaan oo dalxiis karaan. laakiin waxa meeshan ugu digniin ugu diraya dadka raba biri inay waxyaalaha xun ku suubiyaan fawaaxishaadka meeshan uga diga hadii aan leedahay gabdhaha qaqaawan xeebta imaanayo iyo wiilasha oo ajnabi kala oo isku dhagdhagaya ama ayagu qaqaawan dhibaato geysan kara sababtoo hadii gabadh isqaawiso dhalinyarada ay foodayso meesha dhibaato ka dhalan kara koow aydan is asturto anaga ciidan u diyaarinay ciidan qarsoon iyo kuwa la arkayna u diyaarinay inaan idil waxad gudbin dhalinyarada waliba fawd waxa u badan wiilasha ama ragga waxaan leenahay ayagana digniintan inay dhinac ka qaataan ay ilmaha nabadgeliyaan gabdhaha iyo haweenka iyo dadka waayeelada in loo naxariisto anagana ammaanka qofkii soo galay degmada Cabdilcasiis ayadoo la baarin inuu saxeebta u soo gudbin hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa degmada Cabdilcasiis maamulkeedu waxay diyaar u yihiin biri subax iida ilaa 3 biri iida waxay u taagan yihiin ammaanka degmada Cabdilcasiis kaligay masuul kari ammaanka hadaan haysan shacabka degmada iyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. dhanka kale agaasimaha guud ee waaxda dalxiiska iyo maalgashiga gobolka Banaadir Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arizona ayaa ka warbixiyay ololo nadaafadeed oo ay ka sameeyeen xeebta dheer ee Lido taas oo ay ugu sii diyaar garoobayaan munaasabada Ciidul Adha. waxaana uu agaasimaha guud ee waaxda dalxiiska iyo maalgashiga Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arizona sheegay in shacabku ay si nabad ah ku soo damaashaday karaan xeebta dheer ee Lido inaan meeshan maanta nadiifino qurxino diyaarino bulshada marka hadaan anagu diyaaranay waxa iyagana laga doonayo waxay tahay inay biri halkan yimaadaan ka qayb qaataan dalxiiskeedii soo muujiyaan ahmiyadda ay u leedahay xeebta Lido bulshada gobolka Banaadir ku soo dalxiis tagaan maadaama loo qurxiyay sidoo kalena inta dalxiiskooda iyo imaanshaha xeebta ay ku jiraan inay nala ilaaliyaan anshaxa wanaagsan inay wax ka ilaaliyaan inaysan sameeynin wax dhaqanka suuban iyo anshax wanaagsan ee bulshada leedahay ka hor imaanaya inaysan suubin in qof kasta isagoo qurux badan oo ciid isku soo diyaariyay halkan uu yimaado markuu hiribka soo dhargay ka bacdi inuu halkan aariyo qaato ku nafiso biri waa udxiyadii dad badan hiribka isku diyaarinaya marka waxaan leenahay soo damaashaa taga Ayuub Cabdiraxiin Maxamed